waxaan taagannahay meeshii xalay gubatay ee Taiwan-ka magaalada Jigjiga haddii dadka ka kaco aad u weynaa oo masiibo ahaa oo dhibaato aad u weyn geystay ayaa saacado ka hor si fiican loo baktiyey haddii in ugu dambeysaan wadnaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay waan u mahadnaqaynaa bulshada magaalada Jigjiga hay-adaha amniga saasoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa walaalahana Somaliland ee xalay amin saqdhaxaa nooga yimiday magaalada Hargeysa uu ugu horeeyo maayarka Hargeysa saasoo kale ciidanka dendemiska ee Somaliland baan u mahadnaqaynaa oo nagu soo taageeray ama dhibaatada la qaybsaday dhibaatada nagu dhacay la qaybsaday taasoo noo keeneen gaadiidkii dendemiska iyo ciidankii qaydka u tababarnaa oo debinta dabkan qayb libax la ka qaatay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay walaalayaal abaalkiina ma gudi karno abaal wanaagsan baad noo gasheen ciidankana waxaan leenahay nooga yimiday magaalada Hargeysa ee sida fiican uga qayb qaatay shaqada aad qabateen ee dabkan la demiseen ilaahay ajar baad ka helaysaan waa abaalaan hayna weeyaan ilaa xalay waqtigaad soo baxdeen ilaa waqtigan aan taagannahay inaad taagantihiin meeshii dabka kacay oo meelihii ugu dambeysay dabku ka jiray in la sii deminayo ciidanka waxaan leenahay ilaahay na barakeeyo aad iyo aad waan ugu mahadnaqaynaa saasoo kale bulshada magaalada ama shacabkii hawshan khasaaruhu ka soo gaadhay dhibkaa ka soo gaadhay waan la qaybsanaynaa walaalahana mataqaanaa dhibka u gaadhay waan la qaybsanaynaa xaqiidii waa masiibo weeyaan iyagana waxaan leenahay kolley dowladdu way garab taagannahay insha allah wax alla wixii ka hiil iyo hooba insha allah way la garab taagannahay dhibkayna gaadhay la qaybsanaynaa aad iyo aad waad mahadsantihiin